madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay orodyahanka Mo Farah oo uu helinayay orodyahanka Cabdi Aadan Nageeyo oo warda dalka Netherland ama Holland oo ay saaxiibo yihiin Mo Farah oo isagu warda dalka Ingiriiska. Kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay orodyahanka caanka ah ayaa ahaa dhiirigelin uu madaxweynuhu muujinayay labadan orodyahan isagoo kula dardaarmay inay halka ka sii wadaan dadaalkooda tusaale fiican oo noqdaan jiilasha soo koraya. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu uga mahadnaqay magaca iyo sumcadda ay u keeneen dadka ku hadla af Soomaaliga meel ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliland oo uu ka soo jeedo Mo Farah. ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu ku muuneeyay orodyahanada bilada abaalmarin oo ka turjumaya dadaalka iyo kartida ay muujiyeen gaar ahaan magaca iyo sumcadda uu soo jiiday dalka Soomaaliland iyo guud ahaan inta af Soomaaliga ku hadasha. Madaxweynuhu wuxuu ku soo dhaweeyay Mo Farah dalkiisa hooyo isagoo uga mahadnaqay inuu soo kaxaystay dalkana keenay saaxiibadii ay isku mihnada ahaayeen oo ugu horeeyay Cabdi Aadan Nageeyo oo isagu orodyahan kale oo caan ah oo ordo dalka Holland balse waqtigii fasaxa ku yimi Soomaaliland. madaxweynaha waxa kulankaasi ku wehelinayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi agaasimaha guud ee madaxtooyada Rashid Baar Cadeer TV Hargeysa.